waxaad u leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad u leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraa xabsiga markaan ku jirnay waxaa dhacday rag dhalinyaro badan baan nahay oo iska sheekaysto oo marka waniyo gabadhaas anigu ku haystaaba dhalinyaradu iska oranaysa waniyo anigu taasabaan ka helayba macnaha de madadaala bal ka dhiganaya waqtigaas habeenada kamid ah ayaa wax dhacday gabadh baa shaqada soo gashay gabadhaas dhowr jeer horena shaqada way soo gashay gaarka nagana ilaalinaya marka gabadhu waa gabadh Mareykan oo tii askariyada sarkaalada waliba marka waxa dhacday gabadhii ayaan ku yiri dhalinyaro anigu gabadhaas sabab ku haystaaba akhlaaqdeeda iyo wanaageeda runaantii iyo quruxdeeda way bay soo jiidatay aniga markaas ay dheen warayay war awaankii aaw uu degdegaya warniyo yalla faaga lagu xidhniyo markaasaan ku riniyo anigu aanu sheegtay baan doonayaa jacaylkayga gabadhane aaw ila taga hadii aan anigu u tago keligii walla xidhaya meel dadka de lagu ciqaabaa jirto oo jeelka ka sii hooseysa marka anigu halka dooni ma inaan tage keliga laakiin hadii dhamaantiin wada tagno cidina halka inama geenayso saaxiib marka ila taga waa laga kala farxaday waxa la anigu kuma jirnaniyo marka maansaan ka bilaabay halkii qaybna aan gabadhii kaga sheekaynayo qaybna aan kaga sheekaynayo inay gabadh sarkaalada toon lagu dhici kareen qaybna aan leeyahay warnimayo maxaad gabadha oo iyaga laftigooda saaxiibaday marka anab saasi horta ku bilaabantay marka yada kulli sharaxaysa qaybaha dambe aan siiradu taago waxay oranaysaa cabaariyaha ku yaaliya gacmaha shaashka cududeeda indhaca la moodiyo wajiga caadil ku abuuray cudoonida talaabada markay faalla cuganayso cod yaraanta waxaad moodaysaa geenya camalkeed cadaantiyo jidhkeedaad sidii curubta moodayso ninkii calaf ilaah ugu daraa wuu cayilayaaye anna waxaan la caataysanahay canab daraaddeede sidii aanu caashaqay hurdadu way igu ciririiqe cunadii daraaddeed ka go'ay taanu ciilahaye ciddii aanu sheegaba anay igu ciyaaraan dhalinyaradan saaxiibada ahaynaan u sheegtay kaftan bay u qaateenba mari sidii caddaan ugu badheedh oo sheego cudurkaaga misna waan cabsaday oo ka baqay inay isoo caydo inay igu tirada maxbuus baa tahay umana qalantid inaad jacaylkaaga ii sheegatay sirriteedaad intaasay igu filaan lahayd marka waan sii garnaqsanayaa kulleed wixii ay odhan lahayd waan garanayaa misna waan cabsaday oo ka baqay inay soo caydo mari sidii nin ragi ma cabsadee cuga nasiibkaaga war wax kastaaba kaaga dhacaane gabadhan iyo sheego intuu hadalku ku gubi lahaa misna inaan xabsiga misna waan cabsaday oo ka baqay inay soo caydo mari sidii nin ragi ma cabsadee cuga nasiibkaaga misna inaan xabsiga ceeb u galo waan ka cagajiiday oo waxaabana sirniyahow bari baa lagu sheekaysan dhalinyarada saaxiibadan warninkiniyow xalay buu de yaa kawdhe mari sidii cabaar daawo oo caawa yara seexo misna inay carowdaan ka boqon cadha ka sii qaado de habeen barkaaba la bedelayaaba ila waa shaqaale waa askariyeed misna inay carowdaan ka baqay oon cadha ka sii qaado mari sidii qoraal ugu cadee canab jacaylkaaga misna inay caasada ka baqay duulku waa cadawe dumarku de dad jacaylkaaga u sheekaytan Soomaalihi gaalo waxay doonaan noqdaan kulliba markaas may sixir sare garacanaysa sida la sheegay cakuye naag sarkaalada ninkii dooxu kaga ciiray ee aan codkana dhiiban karin caashaqna u liita cilada ninkii garanayo maanta iga caawi warbal ninka naag sarkaalada jeclaaday ee aad caashaqada ugu daran yahay waliba aan codkana u dhiiban karin ee deeyadii waxba u sheegan karin bal arrintan ninkii garanayo